مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. marka koobaad waxaan ahay hooyadii labada ciyaalka ee TikTok la dhaxwaday xaqiiqadana ilaahay baa og ninkaas caruurtiisa markii hore isaga iga qaatay markii dambana social media isaga keenay waxaan igu kaliftay runta inaan sheego ciyaalka yararkii sidii waxba ogeyn ee la dhaxwado meesha marka koobaad waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan xaqiiq ahayn ayuu ka sheegay halka dawladdiina uu iga gudbiyay inaan ahay hooyo xun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا channelka قيس iyo رحمة وولالكين قيس walaalayaal muuqaal ayaan idin la soo wadaagay shalay muuqaalkaasi oo ku saabsan wiil Soomaaliyeed oo muuqaal iska soo duubay oo yiri laba ilmood uu wato hooyadood ayaa ka tagtay hooyadood ayaa ka carartay asagoo lahaa maanta waxaan idin hayaa hooyada labadii ilmood dhashay oo wiil ku sheegay inay ka carartay dad badan ayaa wiilka markay arkeen muuqaalkiisa ama ay maqleen wuxuu sheegaya gabadhaasi Soomaaliyeed aflagaadeeyay aaway dadkii lahaa taas hooyo ma ahan hooyo la'aan ayaa dhaanto taas naag ma ahan waa xaaladda nin aroosay single mother iyo waxyaalo kale oo aad u fara badan ayaa runtii la isdhaafsanaya ama laga hadlayay hadalladaasi oo dhan inta gabadha warkeeda la maqlin ayaa runtii hawada la soo galiyay xaqiiqada ilaahay baa og way wanaagsan tahay in la sugo warka ama dadka markay wax tabanayaan qofka wax laga tabanayana in la sugo way wanaagsan tahay anigu hadal ku dheeraanin walaalayaal bal gabadhan isla maqallo gabadhan isla dhageysano waxay ka hadlayso qaabka wax u dhaceen sababta ayada iyo ilmaheeda ay ku kala maqan yihiin ninkaasi ama wiilkaasi Soomaaliyeed oo muuqaal iska soo duubay iyo ayada wax dhaxmaray bal wada dhageysano daawasho wacan. Salaamu calaykum waxaan salaamayaa asxaabta marka koobaad waxaan ahay hooyadii labada ciyaalka ee TikTok la dhaxwaday xaqiiqadana ilaahay baa og ninkaas caruurtiisa markii hore isaga iga qaatay markii dambana social media isaga keenay waxaan igu kaliftay runta inaan sheego ciyaalka yararkii sidii waxba ogeyn ee la dhaxwado meesha marka koobaad waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan xaqiiq ahayn ayuu ka sheegay halka dawladdiina uu iga gudbiyay inaan ahay hooyo xun arrimo badan ayaa jiray isagii aniga noo dhaxeeyay laakiin ma rabin lifekeyga noloshayda inaan ka hadlo laakiin damba kaliftay waxaan sheegayaa markaa ilmahaygii in sidii la igu soo celin lahaa wadanka Jarmalka waan ka baxay hooyo xaamila baan ahay ilmo yar oo kale waan sitaa labada yararka maadaama uu gudbiyay hadeer in la idacweyn karo oo caruurto dhan la iga xaabsan karo marka islaamka ilaahay waxa ka codsanaya ninkaas inta la hadlo in ilmahayga yaryarka uu ii soo celiyo qof waalana ma ihi qof xiska ka jirana ma ihi qof caadi ah oo fayo ayaan ahay wixii jiray oo dhan oo xaqiiqadana uu qariyay wixii dan kaliftay in ilmihiisa intuu iga qaado haddana waxaan rabaa xaqiiqada inuu qariyay oo xaqiiqadii oo dhan shaaha inuu sheegin oo waxaan jirin oo joogin sheego meesha la soo istaagay Soomaali Maxamed ilmaha hooyo tuurtay bas ilmo la tuurayna ma jirto ilmo kastaan hooyadii way jeceshahay yaa intii horena ana haystay anaana la leeleeyay ana intaas oo dhan haystay marka waxaan rabaa xaqiiqadu waxay tahay mar rabo wali inaan indhaha shaaca ka qaado muhiimna iima aha muhiimadeedu waxay tahay sidii uu halka uga calaacalayay in ilmihii yaryara la ii soo celiyo oo meesha aan joogo la igu keeno inta bes aan rabaa muhiimadaan u soo galayna waa inta ilmahaagana gaal loo dhiibay ilmaha yararkaana gaala loo dhiibin sabab anu hooyo bilaadamiir ma ihi wali xiskeygiina waan qabaa waxbana ma qabi isagaan igu kalifay inuu ilmihi yar qaato khilaafkiisa iyo dibkiisana ka fadhiyay kar waayay hadeerna inuu isa soo gadiyo oo TikTok soo dhax fariisto isaga bilaabay. walaalayaal waad maqasheen sheekada dhinaca gabadha qof ayuu eedeynayaa xaqiiqada ilaahay baa og gabadhaasi waxay sheegtay af Soomaali ayay ku hadashay mar rabo inaan idin fasiro ama aan
details aan dib ugu laabto laakiin haddii aan dhowr qodob ka soo qaadano waxay tiri asaga ayaa iga qaatay dowladda ayuu report iga gudbiyey ayay tiri ama waxaanan ahayn iga sheegay waxaa halkaas ka muuqdo inay dacwo booliis jirto waxaa kaloo sheegtay dalka Germany inay ka baxday waxay sheegtay ilmo kale wadata waana xaamila waxay ka cabsatay maadaama booliis lagu dacweeyey in ilmaha ay haysato laga qaato ayay ka cabsatay dalka way ka baxday ama dalka Jarmalka way ka baxday waan ka baxay ayay tiri wadan kale ayay joogtaa runtii haddii aad fiiriso dhibaato labada dhinacba way ka muuqataa waxaan ilaahay uga rajaynaynaa qoyskaasi inuu ilaahay dhibaatada ka dulqaado aabba iyo hooyo haddii calafkoodu dhammaaday ama ay kala tageen ilmahaasi inuu ilaahay gacanta gaalada gelinin ayaan ilaahay uga baryeynaa insha allahu tacaala arrimo noocani oo kale waxaa wanaagsan inay qoysku dhex galaan ama ehelada iyo qaraabada dhex galaan ayaa wanaagsan sababtoo ah aabbahani ma ahan aabba ilmihiisa dayacay oo ka cararay ama hooyada uga tagay weli waxaa halkaas ka muuqato raja inuu ilmihiisa korsado hooyadana sidoo kale uma muuqato hooyo xun maadaama ilmo kaleba gacanta ku wado oo haddana ay xaamilo tahay weli waxay rabtaa ilmaheeda in loo soo celiyo gacanteeda lagu soo celiyo oo ay ayada korsato labadani qof dad xun uma muuqdaan ama dad ilmahooda korsan karin uma muuqdaan laakiin waxaa halkan ka muuqdo isfahan la'aan insha allahu tacaala ha loo soo duceeyo waxa isdilay isdhibaateeyey ama dowladda gacanta u galay ama xabsi la dhigay meesha kama muuqdaan weli arrinta waa la qaban karaa ehelada iyo qaraabada labada dhinaca wiilka iyo gabadhaba waxaan oran lahaa insha allahu tacaala ha la dhex galo ilmahaasi meel ha la saaro mustaqbal fiican ha loo sameeyo gabadhaasina waxaa rabnay inaan hadalkeeda maqallo sheekada dhinaceedana aan maqallo aad iyo aad bay u mahadsan tahay runtii ay ka hadashay dareenka hooyanimo muujisay inay jeceshahay ilmaheeda inay rabto ilmaheeda in loo keeno aad iyo aad baan ugu farxay codkeeda markaan maqlay wiilkana waxaa rajeynayaa inuu hooyadaasi si wanaagsan la shaqeeyo hadduu rabo inuu haysto ayakoo heshiis ku ah ilmahooda haystaan hooyana ka warqabto aabbana ka warqabo waxaa la yidhi marka labada dibi hirdamaan ama isdagaalaan cooska ayaa baaba'o ama cooska ayaa dhinto adinka waxa idinka dhaxeeyo adinka ayay idinka dhaxeeyaan labadan waalid kaliya ma ahan annagoo dhan ilaahay ha noo fududeeyo nolosha qurbaha ma ahan waxa sahlan kuwa dhibaato haysato oo hadda dhibaatooyin kala duwan ku furan tahay ilaahay ha u fududeeyo kuwa ilmaha laga qaatay ilaahay ilmahooda ha u soo celiyo kuwa dhibaato noocani oo kaleeto sida qoyskani oo kaleeto sabareed ah ilmahana ka dhaxeeyaan oo isafgarasho la'aan dhexdooda ka jirto ilaahay shaydaan dhexdooda ha ka qaado insha allahu tacaala walaalayaal aan isu soo duceyno qof dhibaateysan ama family problem haysto markaan baraha bulshada ku aragno sheeka uun intaan ka dhigno yaa laga tagin waa serious situation dhibaatooyinka ugu waaweyn oo qurbaha ka jiro waaye aan u duceyno walaalaheenna aan isu soo duceyno aad iyo aad baad umahadsantiin walaalayaal muuqaalkaasi kooban ayaa raba inaan idinla soo wadaago fadlan haddaad ku cusub tahay channelka qays iyo raxmaa subscribe taabo gambaleelkana furo si aad u hesho notification tan iyo kulantideenna dambe walaalayaal waa walaalkiin qays oo idin leh nabad iyo nolol ayaan idin rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh